madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo ka hadlaya xaflad soo dhaweyn oo xalay lagu sameeyay Muqdisho ayaa sheegay erayo laga dheehan karo musuqa iyo awood sheegasho maamulkiisa isla markaasna abuuri kara kala shaki dhexmarta dadka u tartamaya kuraasta xildhibaannimo ee 2020-2021 meeshana ka saari karta hufnaan iyo sidoo kale doorasho xur ah oo xalaal ah madaxweyne Saciid oo u jawaabayay hadal uu ka jeediyay xafladda Mahad Cawd gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka kaasoo sheegay inuu markaasi kursigiisa kala soo cararay Puntland isla markaasna nagaadi ku ahayn Galmudug ayaa yiri kursiga uu Mahad la soo cararay waa soo ceshan kartaa ayaa ku dhihi lahaa waxaan balan qaadayaa haddii uu soo noqdana in uu isaga ku soo baxayo haddii uu Galmudug yeelana waan ka daba tegayaa in aan kala shaqeeyo halkan ka sheegaya hadalka madaxweyne Dani ayaa loo fasirin karaa inuu meesha ka saarayo hufnaanta soo xulista kuraasta xildhibaannimo ee 2020-2021 ee xilaaanta iyo in madaxda dawlad goboleedyada ay masaafo isku mid ah ay u jiraan dadka tartamaya heshiiskii siyaasadeed ee doorashada 2020 ee Khamiistii ay gaareen dawladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada ayaa faqrooyinka xulista xildhibaanada loo dhigay sidan in dawladda federaalka ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dawlad goboleed ah in deegaan doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka laga asteeyo laba magaalo oo ah caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dawlad goboleed kasta in tirada ergada xildhibaan waliba u codeynaysa ay noqoto 101 erga oo markaasi matalaysa beesha wadaagta kursigaasi in xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo sidoo kale dawlad goboleedka Mahad Cawd oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka waxa uu goobta ka sheegay aniga kursigayga waxa uu taransi ku soo yahay Galmudug halkaas ayaan doorashada ku soo galaya saaxiibada Puntland ku soo dooranaya haka nabadgaleen doorashaan u soo socona walaalayaalo amaan halina ka helo qoor la hadal oo ninka amaan sii dhex heshiiskii koor golaha shacabka 30 Juun 2020 ayaa ansixiyay xeer lagu nidaaminayo kuraasta isla markaasna diidaya in kuraasta laga raro deegaanadii hore